wadaago xaflad casho sharaf ah oo sanad kasta dhamaadkiisa kambaniga dhinaca gaadiidka ka shaqeeya ee Royal Transportation ee fadhigiisu yahay magaaladan Indianapolis ee gobolka Indiana ay qabtaan ayaa xalay waxa lagu qabtay hotelka Westin oo ku yaala bartamaha magaalada Indianapolis. Xafladan oo kambaniga Royal uu soo agaasimay ayaa waxa lagu casuumaa shaqaalaha kambaniga oo lagu abaalmariyo kuwa iyagu muddada dheer la shaqeynay isla markaana kambaniga shaqo wanaagsan u qabtay macaamiisha uu adeego iyo sidoo kalena macaamiisha kale oo ay wada shaqeeyaan kambaniga ayaa lagu casuumaa. waxaana sidoo kale lagu casuumay sanadkan koox fanaaniin ah oo iyagu markii ay dadku cashaynayeen halkaasi ku madadaalinayay. haddaba xafladan ayaa ugu horreyntii waxaa furay Isaaq Cawaale oo isagu ah aasaasaha kambanigan isla markaana ah madaxa kambanigan waxaana uu soo dhaweeyay dhammaanba ka soo qaybgalayaasha. I want to thank for Visit Indy for us business and helping us to get more business for all this convention coming to the city and improve our service. Thank you, Visit Indy. That town and the people who live there, they welcome me. They treat me as one of their own. I enjoy living there, and I thank Plainfield and the state of Indiana and United States of America welcome me here. Thank you. I create 55 jobs. My bureau this year, I talked to Ann earlier, it was almost $3 million bureaus. It's people who work in there, they get high-paying jobs. I love American culture, and I'm a hard-working American, and I'm proud to be Somalian American, and I am not a garbage. sidoo kalena waxaa xigtay in xilligii abaalmarinta la siin lahaa shaqaalaha loo gudbay Amber Ked oo kambaniga u qaabilsan dhinaca madaxa isla ah Amber Ked oo ah madaxa shaqaalaha ee kambaniga Royal Transportation isla markaana dhinaca dhaqaalaha u qaabilsan ayaa waxa ay sheegtay in sanadkan ay wax ka bedeleen qaabka shaqaalaha loo abaalmarinayo isla markaana ay doorteen in la abaalmariyo shaqaalaha 5 sano iyo ka badan joogay iyo kuwa waliba 10 sano iyo ka badan joogay. So this year and moving forward, we're going to honor people that have been here for 10 years and up and 5 years. waxaa la yaab lahayd in kambaniga xafladiisa casho sharafka ah ee dhamaadka sanadka lagu casuumay Alex oo madax ka ah amaba ka socday shirkadda caymiska siisa kambaniga Royal oo gawaarida caymiska ay ku jirto waxaana uu goobta ka sheegay in kambaniga Royal uu dhinaca badqabka wax weyn ka qabtay isagoo sheegay in 3 shirkadood oo kaliya ay wadanka ka jiraan kuwaasi oo caymis siiya kambaniyada noocan oo kala ah oo dadka qaada maadaama qatartu ay sareyso oo shilal ay dhici karaan dadna ay ku dhiman karaan kuwana ay dhaawacmi karaan kambaniga Royal sanadkii la soo dhaafay waxa uu aad uga taxadiray dhinaca badqabka dadka ay qaadayaan sidaas darteed waxa uu sheegay in sanadku markuu dhamaado la qiimeeyo kambanigan imisa shil ayuu galay imisa qof ayaa ku geeriyootay ama imisa qof ayaa ku dhaawacantay waxa uu sheegay in markaas kadib la fiiriyo in caymiska lagu kordhiyo kambanigan maadaama badqabkiisu uusan wanaagsanayn ama in laga dhimo haddii uu wanaagsan yahay waxana uu sheegay in kambaniga Royal uusan wax qatar weyn ah oo shilal dad ay ku dhinteen ama ku dhaawacmeen sanadkii la soo dhaafay aysan darawaliintiisu aysan geysanin sidaas darteed waxa uu sheegay halkii lacagta lagu kordhin lahaa in lacagta laga dhimay taasi oo mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha kambaniga Royal ba ay aad u soo dhaweeyeen. So credit to all of you guys who put this on and credit to Isaac for the culture that he's created. Kudos to all of you guys for a great year. So as Isaac said, in this passenger transportation industry, the number one concern is insurance. Rising insurance costs and factors associated with that. One thing to always keep in mind, when you are driving any of the vehicles, whether it be a motor coach all the way down to a sedan, you have higher insurance limits than any other individual on the road, by far and away. You also are looked at as a target. So anytime that there is an incident, people look and they see commercial branding on the side of a vehicle and they see dollar signs. Attorneys see dollar signs. So it's just very important to always keep that in mind. The insurance carriers will always tell you that every time the vehicle leaves the yard,
they're giving you a blank $5 million check, and they're hoping that it comes back not having to be paid out. And there's more and more incidents that arise that reach that level. But I know with Isaac and the team that he has in place, with Scott and Ann with Scott with the maintenance, it's important. Safety's ultimate, the number one priority in this business. Your customers, your clients expect that they're going to get from point A to point B in a safe manner. Isaac, who spends a lot of his money on vehicles, expects them not to get damaged. So it's just always important to keep that in mind. And Isaac is right. Rates are going up between 15 and 20%, and Isaac got a rate reduction this year. And that's a credit to everyone in the room on that happening. So, and he is right. There are only 3 insurance carriers that want to insure these types of businesses across the country. And it's simply due to the high liability risk and exposure with transporting people. So always be mindful on the road, and always, again, treat the bus like it's yours. And always just be mindful that other people on the road, and sometimes the people that are in your bus that you're transporting, can also be your worst enemy at the end of the day if an incident happens. So thank you all. Thank you again for having me. markaasi kadib waxaa la gudagalay in abaalmarin la siiyo shaqaalihii kambaniga kuwii 10 sano iyo ka badan la soo shaqeynayay iyo kuwii 5 sano iyo ka badanba la soo shaqeynayay. waa kuwan markaa qaar ka mid ah shaqaalihii oo iyagu ka hadlaya dareenkooda markii abaalmarinadaasi la guddoonsiiyay kadib. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. caawa waa habeen kale farxad leh. waa sanadkii 12aad oo la shaqeynayo Royal, oo xafladan oo sida dhaqanka u ah Royal sanad walba la qabto gabagabada sanadka laguna abaalmariyo shaqaalaha. sanada great year, sanad fiican bay ahayd. shaqaale badan, dadkii nala shaqeynayay, kambaniyadii shaqada loo qabanayay oo maaragtay lagu abaalmarinayay. marka it's been great. marka aad ugu faraxsanahay inuu kambanigana horumar sameeyay from that long, inuu maaragtay meel fiican uu soo gaaray. hadeertaan uu kamid yahay one of the enterprise companies oo magaalada well known ka and well respected ah. sida aad videoyada kala ma ka arki doontaan, ninka Alex Insurance oo sheegay the most safest company oo in the country inuu noqday over 300 plus companies around the country. marka aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka mid ahaa dadkii sababay aad ugu faraxsanahay. bismillah, ilaah baa mahaddan iskale suuqan keenay xafladda quruxda badan xafladda Royal suuqan keenay. kambaniga anigu waxaan la shaqeynayay 11 sano, 2015 baan la bilaabay. aanu hayaa driverna waan u ahay, tababaraha shaqaalahana waan ahay. ilaahay ma hadda iskale soo gaarsiiyay waqtigan. waa kambani aad iyo aad u qiimo badan, dad badan oo Soomaali oo kala noocan u shaqeeyaan. nimba position buu ka shaqeeyaa. positionka anigu aan ka shaqeeyo driverna waan ahay, tababaraha kambanigana waan ahay. sidaas lagu abaalmariyay. abaalmarintana waa la siiyay alxamdulillah. waxaan rajaynaynaa inaan u sii shaqeyno haddii ilaahay na gaarsiiyo. waana kambani Soomaali oo dhan isugu timaado oo ajnabi iyo cid kastaba ka shaqeyso. waana kambani de magaca hadda yeesho weyn oo maasha Allah, waa kambani weyn buu noqday. bismillahir rahmaanir rahiim. cilmiga kambaniga waxaan u shaqeynayaa since 2015. waxaan u maleynayaa dhawaan sanadkii 11aad ay bilaabanayo. alxamdulillah, dad iswada fahansan darawaliinta iyo dispatchada iyo ownerka la yahay way jirtaa marar fara badan oo waxay halaabahayaan. hadiga jeerna dee wixii hadda waxaa la yidhi hadday ceebkeenana caanan ma keento, hadday wax halaabaan waa la wada hadli. other than that everything waa okay. alxamdulillah, waxaan rajaynayaa inaan sii joogi doono hadduu alla idmo insha Allah. magacaygu waa Cusmaan Awaale, waxaa ka mid ahay darawaliinta Royal Transportation Indianapolis, Indiana. sanadka xilligan waxaa la qabtaa xalfad lagu abaalmarinayo darawaliinta. sanadkan waxaa la abaalmarinayay darawaliinta inta badan ka soo shaqeysay long time drivers. qaar 5 sano ahaayeen, qaarna 10 sano. anigu waxaan ka mid ahay kuwa 10 sano ka shaqeynaya ka badan. waxaan halka ka salanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada teamka isla shaqeyno iyo dhammaan asxaabta ka soo qayb gashay. Hi, my name is Regina Covington,
And I work for Royal Transportation, and I was one of the ones who was recognized of 5 years or more. I truly grateful to be here, a part of Royal Transportation, and I just want to say thank you all for recognizing me. It means the world to me. My name is Yusuf. I've been with Isaac for 15 years. I got this job fresh out of the military, and Isaac's been nothing but great to me. I love doing this every year. I love getting together with all the other drivers and seeing everybody in one place, because we don't normally get a chance to do that because we're not like a office type of job. So it's great being here. It's Christmas time. So much fun. I love Isaac and the Wally family, and I love seeing everybody, and hope to see you guys again next year. aasaasaha kambaniga Royal Transportation iyo sidoo kale ahna madaxa kambanigaasi Isaaq Xuseen Cawaale ayaan gabagabadii bal wax ka weydiiyay xafladan waxay uga bedelan tahay xafladihii hore ee sanad kasta ay qaban jireen. waxana uu sheegay sanadkan in la ballaariyay oo lagu soo daray qaybo kala duwan, shaqaalahana qaabkii loo abaalmarinayo wax laga bedelay. waxana uu sheegay sidoo kale inuu aad ugu faraxsan yahay in kambanigii caymiska siinayay shirkadiisa in ay yiraahdeen badqabka kambanigan aad ayuu u wanaagsan yahay, halkii lacagta lagu kordhin lahaana lacagtii laga dhimay. waxa uu sidoo kale sheegay in 28 sano uu wadanka joogay uu muujiyay howlkarnimo iyo waliba shaqo adag, isagoo xaqiijiyay in hal maalin uusan shaqo la'aan ahaanin, qoraxduna aysan u soo bixin isagoo sariirtiisa jiifa. waxana uu yiri waan ku faraxsanahay inaan ahay muwaadin Soomaali Mareykan ah, qashinna ma ihi. waxaan ogeyn dhawaan madaxweyne Trump in dadka Soomaaliyeed uu ku tilmaamay inay qashin yihiin, marka wuxuu yiri qashin ma ihi, waan ku faanayaa in aan Soomaali American ah. cilmi waa ku maasantahay inaan mar labaad is aragnay xafladeennii dhici jirtay sanadkiiba mar oon shaqaalaha ku abaar mari jirnay iyo darawaliinta, inaan mar labaad isku aragnay waa ku maasantahay. xafladda sanadkan sidii hore oonu qaban jirnay maayna si kale aan u qabanay. shaqaalaha waxaan ka dhignay xilliga ay meesha ka shaqeeyeen, kuwii 10 sano ka shaqeynaya abaalmarinayeen, kuwii 5 sano ka shaqeynaya abaalmarinayeen, kulligoodna abaalmarin ay wada heleen oo camuum oo qof kasta oo helay oo lacag iyo isugu jirta iyo haddaan ilaahay ku diidin alaabo loo dalbay oo magaca kambanigu ku qoran yahay dhar. laakiin nimanka 10 sano ka badan waqtiga ah geliyey Royal Transportation ayagu waxay heleen wax aad u weyn bay heleen. waxa inaan faahfaahiyo ma rabo. waxa kale oo sanadkan ku darnay inaan casuumnay insurance-ga oo actually muhiim u ah shaqada aan anagu ku jirno. markay shaqada aan ku jirno anaga dadaan qaadnaa, waxa waaye insurance-gu waa wax weyn oo ka qaataa, markay dadkaas waa dad qaali ah. waddanka oo dhan America 3 kambani baa insurance gelisa baabuurta aan anagu wadno. waxa uu sheegay ninkii insurance-gu mar walba sanadkii la arkay inuu qaaliyoobo 15%. annaga only company aan Royal Transportation sanadkan inuu qaaloobo iska dhaafe in uu raqiisay oo 20% hoos u dhacay. taasna waxay ku timiday shaqaalaha iyo darawaliinta oo ayagu uga shaqeeya sidii waxay ay kambaniga wax ka leeyihiin, partnership kula kambaniga, mas'uuliyadda qaata, safety-ga ilaaliya. 5 sano ayaanan wax accident ah oo weyn oo la sheegi karo aanan gelin, marka sidaa darteed ayaan ku muhiimsan. midda kale oo caawa meesha ka sheegay oo inaad hore u duubtay oo laga yaabaa waxa waaye hard work, shaqada aad u adag oo aan ka qabanay meeshaan. anigu waxaan 28 sanaan joogaa, 28 sanaan joogay, hal maalin oon America joogay oo aanan shaqo aadin ma jirto. waxaa kaloo 29 sanaan joogay, hal maalin oo qoraxdu sarritii u soo baxdayna ma jirto. waddankaanu waana soo dhoweeyey, haddaan ilaahay ku diidin opportunity una siiyey, opportunity-diina waa qaadanay, waa ka shaqaysanay. waxaan idhi I am a proud Somalian American and I want to tell everybody I'm not a trash. So that's what happened here today. Everybody is happy. We're looking for 2026 and we're looking forward to see you again inshallah. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi nabadgelyo.